maalin wanaagsan waa shaah iyo sheeko. marka hore waxaan idinka raali gelinayaa inaanan toddobaadkii hadda lasoo dhaafay aan idinla wadaagin wax barnaamij oo ku saabsan shaah iyo sheeko. culaysyo shakhsiyan ifuulay baa jiro aan uga maqnaa inaan u waayo waqti, balse waa wanaag haddaan maanta ku wada sugannahay shaah iyo sheeko. waxaan rabaa halkan inaan qodob ka xuso maanta, qodobkaasoo ah aflagaadadii iyo qadafkii madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu kula kacay bulshaweynta Soomaaliyeed. runtii waxay ahayd gaf, waxay kaloo ahayd wax uu si ku talagal ah ay u samaynayeen asaga kooxdiisa. ujeeddada ay ka leeyihiinna ma ahan wax fudud maaha. ujeeddada laga leeyahay qorshahani maaha wax fudud. waa mid ku qotonta kartida iyo dadaalka ay muujiyeen in ka mid ah soomaalidii saldhigatay waddanka maraykanka ama waddamadan kale oo galbeedka, taas oo runtii dhaaftay sidii ay awal ku talagelahayeen. qorshihii laga lahaa waddankooda loo soo burburshay bay dhaafeen. marka waxaan uu Trump hadda bilaabay oo soomaalida looga soo horjeedo ma aha wax ku ekaanaysa waddanka maraykanka. waddamadan kalena way bilaabahayaan, waddamadan kalena way fulinayaan. si walba oo cagta lagu saari karo, lagu baaba'in karo himilada iyo kartida ama dadaalka ay muujiyeen dadka Soomaaliyeed baa la fulinaya oo lagu dhaqaaqaya. kuma ekaanayso maraykan keli. asagu uu ku dhawaaqay oo in badan wuxuu uga fiican yahay waxyaabo hoos loo sheegi jiray ama hoos u socday buu asagoo bannaanka keena. marka dhinacaas wuu ku fiican yahay, waayo in badan oo bulshadeenna ka mid ah weli dareen umay qabaan waxyaabaha hoos ka socda oo dadku waa waxay yidhaahdaan indha ku garaadla magaranaysa, ishoodu waxay qabatay arkaan keliya. laakiin qorshayaal waaweyn iyo dabinno waaweyn oo ummadahan oo dhan hoos yaal baa jira. marka kuwa ka mid a hadday bannaanka u soo baxaan waa khayr, oo in badan aanan awal wax la socon ay hadda maanta ay indhaha kala qaadayso. laakiinse waxaasoo dhan ka soo gudub. runtu mar bay fiican tahay in la maqlo. dadka waddamadan waxay erey bay isticmaalaan oo la yidhaahdo wake up call bay yidhaahdaan, oo ah wax hal mar ku kiciya aadan filayn, oo aada hurdadii iyo mugdiga aad ku socotay hal mar kaa soo saara. dhawaaqa Trump haddii ay jiraan dad wax caqli ama garasho leh, waxay u noqonaysaa fariin cad oo dhibaatooyin waaweyn oo soo socda ay uga hortagi karaan.
soomaalida hore waxay oran jirtay lax walba shililkay isdhigtaa lagu gowracaa. soomaad arag lax waliba shililkay isdhigto baa lagu gowracaa. taa waxaa loola jeedaa marka 35 sano maanta la jooga adduunkan ku noolnahay ma jiro waddan ama bulsho 35 sano inta isku timaado oran weyday war xagee war sidee wax nooga qaldan yihin. soomaaliya baaba bay ku jirtaa. runtii baaba bay ku jirtaa dhinac walba marka laga eego. qolooyinka maamulada ama dowladda dhexe sheeganaya waa ma aragtay ciyaal ma aragtay caruur loo daadsho nacnac oo kale 5 xaboo nacnac 1,000 caruura loo daadsho isku qabsanaysa tiibay ku sugan yihiin. waxa laga rabo waxa u yaalla meeshay yaallaan iyo waxay ku sugan yihiin intaba way ka dhowhan yihiin. waxaa la rabay maanta adduunku waxa uu isku diyaarinayaa dhibaatooyinkii hore oo dhan oo lasoo maray waxba ma ahay. tan soo socotaa ka daran. maalmihii ugu dambaysaa la jooga. soomaad arag waxaan sheeganayna oo dhan wax ka jira ma jiraan. waxa soo socda marka loo fiirsho. soomaad arag haddaba see maxaa ku tabaabusho ah maalin dhaweyd waa dhexdaas waxaa yimid Soomaaliya dhinacan magaalada Hargeysa oo Somaliland waxaa yimid waxay ahayd 8 sano meelaha xilligii ima sugnaa laakiin 6 saac waxaa ku sugnaa oo yimid Bill Gates baa yimid Ethiopia yimid kadib uu aaday 6 saac ku sugnaa. nin ka mid ah raggii la socday waa amnigii ahaan loo kaxaysay oo ii warramaya wuxuu yiri su'aal baa la weydiiyey oo ah muxuu ka faa'iidayaa muxuu u yimid maxaa meeshan jira oo marka wuxuu ku jawaabay uu yiri waxaan rabaa inaan arko sida loo noolaan karo marka system walba oo dowladeed uu burburo siday dadkana ku samata baxeen u noolaanayaan. marka wuxuu yiri cashar bay noo tahay. taa macnaheedu waxa weeye adduunku wuxuu isku diyaarinaya waas muddada aan kuu sheegay oo 9 sano 8 sano 6 sano meelaha u dhaxaysa waxaa la isku diyaarinayaa oo dagaalada hadda muuqda inay dhici doonaan baa la isku diyaarinaya. sistamyada oo dhan waa baaba'ahayaan. marka waxaan baranaynaa buu sida loo noolaan karo ummad u noolaan karto marka ay wax walba burburaan. casharkaasaan u imid meesha 6 saac kaliya ku sugnaa. Soomaaliya waxay noqotay meel nidaamyo badan ama waxyaabo badan lagu tijaabiyey. Soomaaliya ummaduhu ay cashar u soo qaataan. mas-uuliyaddaasoo dhanna waxay ku soo laabanaysaa Soomaalida. waayo ayagaa isdhigay meesha ay yaalaan. runtu waxay tahay marka adiga Soomaaliga ah aad ka dooratay Soomaalinimadii jees reer qoys guri hoose
oo aad moodaysid inaad adduunkan ugu noolaan kartid qoyska ama guriga hoose aad sheeganaysid oo aad xayndaab u samaysanaysid inta kalena aad leedahay ha ii soo gelina cadow ka weynna uu kugu dul hoganayo soo maad arag ceebta qofka walaalkaa ay guul kuu tahay adiga xumihiisa aad is leedahay waxbaad ka helaysaa shisheeyana ula ordaysid soo maad arag marka aad kala garan weydid qofka soomaaliga ah iyo kan ku cunahaya kan ku cunahayana aad moodaysid badbaadadaada inuu yahay soo maad arag waxyaabahaas oo dhan waxay kaa indhasaabahayaan xaqiiqda runta ah soo maad arag waana tan kuu horseedaysa in lagugu qoslo markaa adduunka maraysid dadkii baryada foolxumada wax walba oo xun in lagugu tilmaamo waxa keenayana waa taas wey soo maad arag ama gaariso jooga ama waxaad joogtaa cali sabiix iyo malkaa jabtay ama caacisho meeshii la yidhaha dhulkan koroo hadda cafartu ku dagaalamayso gobolkan city la yidhaahdo oo kale iyo kan garowaya hargeysa joogo waa isku mid weye foolxumada kaa lagu sheego kan xagga jooga way qabanaysaa soo maad arag adaa isku yaqaana inaad kala duwan tihiin kala qabiil tihiin kala qoys tihiin soo maad arag laakiin waa wax idin wada saameynaya wey soo maad arag marka waxyaabaha Trump aan usoo laabto uu ka qaylinayo oo uu dadka ku kicinayo ma aha mid Maraykanku ku ekaanaysa waa mid imaanaysa halkan waa mid wadan walba meel walba Soomaali hadda kadib loola dhaqmayo sida ugu hooseysa dadka soo maad arag marka haddii la rabo in laga badbaado taas waa in dadku wixii hore lagu jiro laga soo baxo laysku yimaado sidii fir Soomaaliyeed oo hari lahaa laga shaqeeyo sidaan ku socno fir Soomaaliyeed hari maayo hadduu harana wuxuu noqonayaa sida dadka jibsiga la yidhaahdo oo kale soo maad arag buu noqonayaa marka adduunku sidaad moodaysaan ma aha wejiga ugu xumaa buu galay xaquuq iyo sharciyo la tixgelinaya ma jiraan haddaad awal aaminsanayd hadda indhaha kala fur soo maad arag waxaad wax ku tahay waa dhulkaaga weeye iyo dadkaaga labadaa waa inay ilaashatid wey soo maad arag inta kala qaybinaysa ama siyaasad ka raadinaysa inay ceebtaas iyo foolxumadaas Soomaali ku sugan tahay ay ama xil ku helaan ama anfac ku raadiyaan waa kuwa Trump sheegaya wey waa kaaga sii daran yihiin Trump ayagaa kasii xun ayagaa ku badan meesha taal ayagayna tahay inaad iska qabatid soo maad arag marka fariintu waxa weeye sheegisteedu waxba ma ahane waa inaad aragtid gudka aad ku socotid aad ka istaagtid hadda istaba qabataan soo maad arag eraygu siduu yahay inaad u qaadataan wey maaha wax fudud maaha hadallada yeeray iyo kuwa imaan doonaba dhinaca kale waxaan mudan in la taageero waa gabadha uu aflagaadeynayo Soomaaliyeed soo maad arag oo Ilhaana way mudan tahay si walba oo qof walba shakhsiga Soomaaliyeed inuu garab iskaaga ka damqado muujiyo ma aragtay af iyo ficilba ku muujiyo soo maad arag waxay taasi xayndaab u noqonaysaa intiina berri raadinaysa siyaasadda
waxay u noqonaysaa badbaadadeedu iyo garab istaageedu in jidka ay furtay aada berri idinku imaan kartaan. soo ma arag magaca dambe oo soomaaliyeedna sharaf buu ku yeelanayaa, wuuna jiri doonaa. soo ma arag marka intaasaan ka leeyahay. barnaamijyada dambe wixii kaloo faaqidaada kusoo qaadaya. taladiinu waa loo baahan yahay, ummaddu inay daba qabato weeye, ka kacdo meeshii fadhido. intaasoo kusoo koobaya.